dadka qaarkii inay isweydiinayaan maxaa keenay xaaladan dadkii la laayay iyo qaburahoodii iyo dhibaatooyinkii dhacay iyo masiibooyinkii dhacay xooga loo saarayo ee loo booqanayo ee loo hadalhayo ee loo sawirayo maxaa keenay in la isweydiinayo yaa suurtagala waxaa weeye taas waa iska caadi oo meel kasta oo ka dhacda adduunka in markay xansuuqyo dhacaan ama dhibaatooyin ay dhacaan dadku inta badan waxay jecel yihiin ka gudbaan oo ay hore u socdaan maadaama masiibooyinka ay waxaas dee hadal aan lagu soo celin karaynin laakiin haddana qaabab scientific oo looga gudbaa jira iminka gabadhii hadda halkan taagneyd markaan idin soo gaabi waxay tidhi ma soo gaabin kara idaa bay tidhi psychologically inta ay hadlayso iyo nafs bay u tahay dhibaatada aynu u maqleen la shargaraynayno ee halka aan taagannahay ay leedahay waxaas igu dhacay waxaas igu dhacay ay uurka caloosheeda ka soo baxayso laftigeedu qayb ka mid ah daaweynta dadkii dhibaato ku dhacday weeyaan dadku markay wax qarsadaan caloosha ku haystaan inta badan way gubtaa waa waxa ugu yar macnaha ay faa'iido leedahay laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo ahmiyadda loo saarayo arrimahaas aan tilmaamo kow shacabkan Soomaaliyeed tan iyo intii 60 sano ka hor ama 70 sano ka hor ay hoos tageen maamulka hadda dalka ay ka tirsan yihiin hal maalin oo ay ammaan iyo nabadgelyo iyo xorriyad heleen ma jirto aabayaasheen mayna helin awooyaasheen mayna helin inagu mayna helin generation la oran karo generation ka saar nastay ma jiro luqadeen oo dhan waa dagaal iyo qax iyo barakicin iyo gubitaan iyo xasuuq waxa weey wax kale ma luqad ka wantaan ahayn malihin saadaradeed hadii la rabo taa in laga gudbo marka ugu horeysa waa in taariikhda la qoro oo la isla meel dhigo weeyaan waxa taariikhda loo qorayaa maaha in la canaanto kuwii hore ee taariikhda sameeyay kaliya kuwa dambe oo waxaas inay damcaan laga yaabana inay ka dugtoonaadaan way ujeedadu wixii shalay dhacay berrina wuu soo noqon karaa history repeats itself wixii shalay dhacay berrina wuu soo noqon karaa haddaan laga hadlin haddaan la document garayn haddaan taariikhda madow la ceebayn haddaan meel lagu qorin wixii halka dhacay maadaama laba ogeyn wixii wax la mid in la sameeyo way sahlanaanaysaa مثلا تاريخنا نازي وكلا هاد ما كلا شاكينيو 100 سنة ka hor dhacday waxa loo sheekeynaya waxa weey ficiladii noocaas ay sameeyeen dib oo dambe cid samee in cabir loo helo way ujeedadu marka horta sayn cilmiyan loo fahmo waa muhiim marka in la document garay ahmiyada ugu muhiimsan waa in la duubo weeyaan sagaalkan walaalaheen halka ku aasani waxay la mid yihiin kumanaanka kale ee wadan ku kala dhintay la mid yihiin markaas ku aasan iyo kuwa aan lahayn iyo kuwa la dadelay iyo ka mid yihiin symbolism weeye macnaha tilmaan ahaan inaan u soo qaadano mooyee inaan leenahay ama aagan kaliya wax ku dhaceen ama aan leenahay intan kaliya wax gaareen maaha macnaha taas waa koowaad horta taariikhda in dib loo qoro talabaad waxa weeye in taariikhda dadku wuxuu ku burmaa 100 sano ka hor wixii dhaca 1000 sano ka hor wixii dhacay taariikhdii daraawiishta tii ka horeysay tii Byzantine-ka tii Constant macnaha tii Greek lagu murmaa taariikh shalay ahayd 2 sano ka hor ayaa hadda inagu aan bilaynaa ku murano 2 sano ka hor taariikh ahayd oo dadkii taagnaa ay joogaan yaa hadda aan bilownay anaga iyo jawaabta hogaaminta qaar kamid ah oo dalaf in hadda ku murano waa taariikh 2 sano laga joogo haddii ay 10 sano gaadho maxaad u maleyn marka maba dhicin baa la oran doonaa maba dhicin maba jirto waxan waa been baa la oran doonaa hadii la marka sidaas ay noo dhicin in doodda hadda socota oo aan ahayn dood siyaasadeed ee ah dood taariikhi ah in iyadana meel la saaro shacabka aan soo bandhigno wixii ka dhacay deegaankeena maxasuuq dad gumaysidiida oo dagaal ku jiray loo geystay buu ahaa mise dagaal ehliya buu ahaa oo waliba loo qori loo dhiibay laba dhinac ay xabad isku rideen waxaan dhaleecaynaa wiilasha xabadda isku rideen dhaleecaynaa mise siyaasadii ka dambeysay ee adeegsanaysa dhaleecaynaa waa dood taariikhi oo taagan weeyaan dood siyaasadeed hadda ma waxa marka sheegayna anagu fikirka ahaan xukuumadda iyo xisbiga talada haya wixii meeshan ka dhacay xasuuq ka dhacay waa xasuuq khalada xasuuqaas oo maaragtay u baahan in la dhaleeceeyo in la ceebeeyo waxa dadka xasuuqayna wuxuu ahaa talada dadkii markaa hayay ururkii TPLF hogaamintiisii siyaasadeed qayb kamida kulligood way lama oran karo laakiin waxaan ognahay qayb kamida inay istaraatiijiyad jeexday waxa la hayaa fiidiyoashii ay kaga hadlayeen ee shacabka ay ku kala qaybinayeen ay u lahaayeen aagaasina waa in la laayo aagan waa in maaragtay la soo dhaweeyo yaa la hayaa oo
ku jiray aad ku haysan social media waxaan haynaa dokumentiyadii shirarkii ay galeen iyo istaraatiijiyadii ay qoreen iyo qaabkii dadka in loo baabiyo iyadoo loo daleeyahay shidaalka ujeedadu ahayd in shirkadaha dad ajnabi ay qaataan shidaalkaas kaliya iyadoo laga leeyahay in halkan aagan dad ku nool laba tirtiro dokumentiyadii la diyaariyay ee xafiiska Mala Zenawi yaali baan haynaa kharaatiyaashii baa joogta marka wixii noocaas ahaa in la fudaysto wax sahlan laga dhigo inay khalad tahay iyadoo dana siyaasadeed laga eegayo dana siyaasadeed hoos laga eegay khalad tahay baan sheegaynaa